comes to the devotion of seeking knowledge, there is arguably no one that shines as bright as Imam al-Nawawi. waxa uu ku dhintay da'da 45 sano, laakiin waxa uu noqday mid ka mid ah imaamyada muslimiinta kuwooda ugu waaweyn. Waxa uu ka tegay buugaag aad u fara badan, maanta ka mid ah kuwooda lagu barasho badan yahay. Haddaba, maxay tahay dadaalkii uu Imaamu Nawawi u galay sida uu diinta u baran lahaa, una bari lahaa dadka? Waxaan ahay Maxamed Buhaari. Ramadaan mubaarak asxaabta ku xiran kanaalka. Waxaan idiin rajaynaynaa caafimaad aad ku soo gaarteen Ramadaankan. waxaan alle ka baryayaa inuu ramadaanta teeda kale nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo. magaciisu waa Abu Zakariya Muxudiin Yaxya bin Sharaf Nawawi. waxa uu ku dhashay tuulada Nawawi sanadkii 601 hijriyada. qur-aanka ayuu xifdiyey isagoo 10 jir ah, kadibna waxa uu u jeestay cilmiga axaadiista iyo fiqiga. waxa uu aabihii u waday Dimashq si uu halkaa uga sii wato barashada cilmiga. dadaalkii uu sameynayay Imaamu Nawawi waxaa la dhahaa inuu maalin kasta qaadan jiray 12 darsi. habeenkii in yar ayuu ka seexan jiray, ilaa la dhaho 2 sano dhinaciisa dhulka ma dhigin. marka ay hurdo qabato waxa uu indhihiisa marin jiray biyo qabow si ay hurdada uga kacdo. marka uu faanuuska ka damo waxa uu iftiisan jiray qalinkiisa. hal mar ayuu wax cuni jiray habeen iyo maalin, waayo waqti uu wax ku cuno ma haysan jirin. wuxuuna dadaal uga jiray sida uga dhabayn lahaa riyadiisii oo ahayd inuu noqdo mid ka mid ah imaamyada ugu waaweyn muslimiinta. waxaa la dhahaa 400 oo jeer ayuu akhristay kitaabka la dhaho Al-Wasiid. hadda waa hal kitaab, laakiin kala akhris dugan. Imaamu Nawawi waxa uu ku dhintay da'da 45 sano, wuxuuna ka tegay kitaabo aad u fara badan. wuuna ka mid yahay kitaabka Arbiciinka, Minhaajka, Riyaadus Saalixiin iyo kutubo kale badan. culimmadu waxa ay dhahaan kitaabta uu qoray iyo da'diisa isma lahan oo isuma dhigmaan. taasna waxa ay ku timid dadaal uu sameeyey Imaamu Nawawi. dadaal kasta waxa uu miro dhalaa haddii go'aan saxa uu jiro. dunidana waxaad kaga tegi kartaa raad wanaagsan. dhegaysi waxaan doonayaa in qisadan ay kuu noqoto shidaal, kuguna dhiirigeliso ka dhabaynta waxa aad rabtid. inta ayaan ku soo afmeerayaa muuqaalkan. fadlan ha ilaawin in muuqaalka la garayso, sidoo kale la wadaag asxaabtaada. waa mahadsan tahay.